shaqo walba oo qofka muslimka ah uu qabanayo waxa uu qabanayaa rajo uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka leeyahay markasta oo rajada Ilaahay aad ka qabtid ay saxan tahay ay toosan tahay ay wanaagsan tahay markasta oo aad ku dhiiratid in shaqadaas iyo dadaalka aad qabanaysid aad ku farayareysatid dadaalkaas ha ahaado mid adduun ama ha ahaado mid aakhiro nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri cibaadada waxa ugu wanaagsan in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mala wanaagsan laga fisho sidoo kale wuxuu yiri Ilaahay xadiisul quds ku yiri anigu waxaan ahay adoonkayga wuxuu uga fisho ee adoonkaygu ha iga fisho waxa uu rabo sida daraadeed waxa jira farq u dhaxeeya dadka caamada ah iyo dadka Ilaahay ku xiran malaha ay Ilaahay ka malaysanayaan dadka caamada ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala malaha ay ka malaysanayaan waxay ku xiran tahay hadba xaaladooda siday tahay tii wanaagsan yihiin oo ladan yihiin oo barwaaqo u socoto xilli Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu Ilaahay mala fiican bay ka rajeynayaan malahaasna ku dhisan yahay nimcada ay markaa haystaan balse dadka Ilaahay ku xiran oo gudbay oo helo khayrka ah malahooda wuxuu ku dhisan yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala goobnimadiisa iyo deeqsinimadiisa iyo nimcadiisa iyo darajadiisa iyo sareyntiisa iyo wanaagiisa iyo lutfigiisa iyo dhimrintiisa ama xaaladdu ha u wanaagsanaato ama xaaladdu ha ku xumaato haddii ay xaaladdu ku adag tahay oo dhibaato ay ku jiraan way u samrayaan oo dhibaatadaas waxay ogyihiin inuu Ilaahay ka dulqaadi doono kalsooni buuxda ku qabaan waxay mar walba ogsoon yihiin in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu arag dambeed wanaagsan iyo khayr labada daarood ah uu ku dambaysiinayo waana sida saxda ah oo la rabo qofka muslimka ah in uu maaragtay Ilaahay ka fisho waayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa dhankiisa ahaaday mar hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku yiri waxa rabti iga filo waxa la rabaa qofka muslimka ah inuu Ilaahay uu maaragtay wax walba ka fisho oo wanaagsan حتى dhibaato haday kugu dhacday in aad ogaatid in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibaatadaas ay maaragtay khayr kaaga dambaynayo oo Ilaahay uusan dhibaatadaas kugu daynin waayo waad xisaabtamaysaa ajar baad ku xisaabtamaysaa u samraysaa sida daraadeed waxaan isku dardaarmaynaa walaalayaal in aynaan sida caamadii u fakirin oo maalinta aan ladanahayna aan Ilaahay وفيعن يهي مرة في عم بكرتشينية واقع ما أنت أي حارد قوة أتقاتنا أنا إلهي فقدم أي ما أدون حن بقى هي إلهي وإن عبي هي حارد وأدقت هي أنا سأرم مرة وقعده إلهي إن وياهي الله نحريس بدن أو بارك تقدم دي سؤال قف كان وحال ربا إن إلهي قيميس درجديس وين ديس إن باركتي كل صو aragtida uu Ilaahay ka haysto taasaan ahtan ugu saxsan waxa khalad ah qofku in uu noqdo qof marka wax la siiyana Ilaahay jecel oo Ilaahay la weyn yahay markuu xaaladu ku adkaatana uu bilaayadu la weynaato waana xikmad dari u baahan qofka muslimka ah inuu naftiisa kala diriro taasna waxa lagu gaaraa nafta oo lagu rabeeyo nafta oo lagu celceliyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu u wanaagsan yahay sida daraadeed waxaan isku dardaarmaynaa walaalayaal oo aan isku adkaynaynaa in aynaan maaragtay yaraysan malaha wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka filayno ma garateen mar walba qofku inuu yiraahdo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaaladaydu wuu hagaajinayaa waa in xariisanaya waxaan rabaa ka helayaa marka cibaadaysanaysa inuu Ilaahay ka aqbalay inaan niyootid marka aad wax bixinaysa in lagu bedelayo aan niyootid adduuniya aakhiro marka aad maaragtay shaqo walba oo sameynaysid aad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad isku xirtid darajada ugu sareysa oo cibaadada waxa la yiraahdaa al-ihsaan oo waxay tahay qofku in uu Ilaahay u caabudo sida Ilaahay inuu arkayo oo Ilaahay inuu ku jeedo aad naftaada u sheegtid oo Ilaahay inuu ku jeedo ma arki kartid laakiin naftaada marka u sheegtid oo aad ku rabayso Ilaahay waa ii jeeda hadalkaaga iyo ficilkaaga iyo maaragtay waxa laabtaada ku soo dhacaba waxa ku dhisaysaa
إلهي رالي آنشيسا إلهي نوحكو أبال سينيا إن آد الدونك الله بقبوبي إيه معان إيه شرف إيه حرقو إيه قوانيو إن آد كل راحيستي آخرنا إن آد كمد نقطي ذاتك قوليستي وإلهي سبحانه وتعالى إيراد كيسا وكم النيسان دون إلهي إنكيس إلهي أنا قد إيقو كوا ملاها وناكسن إلهي كفشة oo aanan maaragtay naftooda u ogolaan malaxumo dhan Allah in ay marna soo gasho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.